Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Cafiifa iyo mar kale janalkeena Cafiifa Janal. Kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii meelbo aad joogtaan. Jimco mubaarak, jimco kariim. Ilaahay maalinta jimcada khayrkeed iyo fadligeeda hana waafajiyo guud ahaan ummadda islaamka. Gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed. Ilaahay hanoo naxariisto, hanoo gargaaro meelbo aan joogno. Ilaahayna inteena dhimatay ha u naxariisto. Inta noolna Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha siiyo. Inta dhibaatooyin kala haystaan Ilaahay ha ka dulqaado. Dhibaatada iyo abaaraha iyo xanuunadan Ilaahay ha naga dulqaado dhammaanteen. Ilaahayna dadkeena ha ka dhigo dad isu naxariisto si Ilaahay noogu naxariisto. Insha Allah maanta waa barnaamijkeeni talo iyo tusaalo oo maalin walba jimcaha idiin soo gudbin jiray. Insha Allah maantana inta aniga aragtideyda ah oo talo iyo tusaale ah idinku soo gudbinaya haddii Ilaahay ogolaado oo ku saabsan maxay ahayd xaaladaha dalkeena, xaaladaha dadkeena, maxay ahayd dowladeena hadda curatay, taageerayaasha sida ay u kala taageeraan aragtiyadooda, sida ku fiican iyo sidii wax u qaldan yihiin. Insha Allah inta waa idiin soo gudbinayaa labada dhinacba, laba dhinaca dadkii la kala noqday, taageerayaasha dowladii hore ee nabad iyo nolol, taageerayaasha dowladan cusub. Insha Allah intaba sidii wanaagsan sida aan aniga u arkay oo ila wanaagsan, intii wanaaga jecelna la wanaagsan. Insha Allah intaasaan idinku soo qaadanaya talo iyo tusaalo hadduu Ilaahay ogolaado. Barnaamijkan waa talo iyo tusaalo. Channelka waa Cafiifa Janal. Kusoo dhawaada. Hore u gala channelka subscribe dhahda gambaleelka furta. Insha Allah barnaamijyo kale iyo waxyaalo kale faa'iido leh aad ka heli doontaan haddii Ilaahay ogolaado. Insha Allah marka haddii aan ku hormaro taageerayaashii dowladii hore ee nabad iyo nolol sida ay wax u taageeraan iyo sida ay wax u dhaliilaan inta waxoogaa way isku yar qasan tahay. Marka in ayagana aan sida wanaagsan u sheego, sidii qaldan aan u sheego dhaho sidaasaa qaldan ha laga joogo. Qolada kale oo dowladda cusub taageersana sidaas iyo si lamid ah ayagana wixii tusaale ah iyo wixii talo ah sidoo kale oo soo jeedinaya. Marka haddii aan nabad iyo nolol ku hormaro, nabad iyo nolol waxaan leeyahay dowladii hore sida aad u taageersaneedeen iyo sida aad wanaageedii iyo waxyaalaha aad idinku wanaag u aragteen aad ugu ammaani jirteen, ugu taageeri jirteen, ugu la garab taagnaan jirteen sidii iyo si lamid ah la rabaa inaad ku sii wadaan si maxay ahayd oo u noqdo xisbiga nabad iyo nolol xisbi sii jiro insha Allah. Marka dadkan waa dadkii waa la isku jiraa, Soomaali weyn oo dhan la yahay. Marka hadda aragta taageero dowlad taageerayo qabiil malahan waa isku jir. Marka sida isku jirka ahay oo la isula socdo in la isula socdo wax hadii la isla dhaliilayana dhaliishi la soo saaro oo wixii la dhaliilaya la tilmaamo laakiin aan qabiil loo dhiibin oo wixii la dhihin qabiila wato. Dowladda Soomaaliya oo dhan ay u dhisan tahay lama kala lahan. Markaas maamulku wixii haya waa qabiilada Soomaaliyeed oo dhan shakhsiyaadka metelo meesha howsha wado. Qabiil walbo 2, 3 iyo 4 uga jirto dowladaas. Marka in qabiil la isu aflagaadeeyo taasaan diidanahay oo aanay aragtidii aan kasoo horjeedaa. Marka nabad iyo nolol waa group isla jiro Soomaaliya oo dhan ah isla socdo, qabiil kale ma lahan. Taageero dowladaas wanaag ay ka arkeen isula socdeen sida aniga u arkay. Marka inaad sidaas ku socotaan ila wanaagsan oo aad jidka ka leexanina oo aad taageerihii aad ogaatiin inuu Soomaaliya oo dhan ka kooban yahay oo reer hebel iyo reer hebel kala ahayn. Marka qabiilada la afqaadayo la tilmaamayo oo wixii xumaana qabiilka oo dhan loo dhiibayo taas laga waantoobo insha Allah. Wixii wanaag wanaaga ha lagu socdo, wixii dhaliil ahna dhaliishi hala tilmaamo qaladaadkii si wax loo saxo. Qabiil oo dhan yaan la afgaarin oo la aflagaadeynin oo xumaan loo dhiibin. Maxay ahayd shakhsiyada waxa leeyahay shakhsiyada wax saxay wixii la saxo waa la wada leeyahay, wixii la qaldan shakhsiyaadka waa loo tilmaamaa ayuu ayaga xataa lagu xadgudbeynin shakhsiyaadkooda laakiin wixii dhaliil ah loo sheegayo saasaa wanaagsan. Marka insha Allah nabad iyo nolol waxaan leeyahay wadadaas idin furan, wadadaas ku socda. Soomaalinimada ilaaliya, waxba ha kala saarina, dadka ha noqdaan dad isla wada socdo oo maxay magaca Soomaali ku socdo oo wanaagi iyo sharafti shalay aan tilmaameen aan ku socono. Jidka ayaan laga leexanin aan leeyahay.
qoladan kale usoo noqonaya iyagana dowladan cusub taageersan marka horena mucaarad ahaa oo nabadii nolol mucaarad ku ahaa haddana muxaafid noqday ayagana waa aragtidooda laguma colaadinayo marka qof walba suu wax u arkay inuu wax u sheego layskuna xadgudbinaa fiican qabiilna aan laysu gaarin oo maxayda dowladan leenahay dowladaas aan wada ilaashano waxay ku fiicnaata lagu ammaano waxay ku qaldantaa loo sheego ayaga laftirkooda waxaan leeyahay dadka shaqsiyaad waa ayaga laftooda ma ahan dadkii oo dhan Soomaali oo dhan ma ahan shaqsiyaadkaas dhahayo anagaa dowladii leh anagaa maanta filadii fadhino anagaa inta fadhino xamar anagaa leh caasimadii anagaa joogno ayagana inay Soomaalinimada ilaaliyaan oo maxay aflagaadada la dhaafo oo wanaag laga shaqeeyo ayagana usoo jeedinaya saasaa wanaagsan wixii haddii xumaan leh lagu sii wado waxay noqonaysaa sanadba sanad waa laysu dhiibayaa adduunkan waa in yar meel la gaaraya ilaaha og marka waxaa fiican in wanaaga iyo wadaninimada iyo dadka in laysu soo dhawaado laga shaqeeyo marka adinkana sidaas ku dadaala laftirkiina maxay qabiilka afka ku haysiin ka dhaafa meesha dowlada la dhisay dowladaas in la ilaaliyaa fiican shaqsiyaadka ammaana dowlada ammaana xaqa u leedihiin laakiin qabiilada iyo qabiil hebel inta ka taliya iyo waxaas adinkuna inaa ka joogtiina idin furan kulliba meeshii maxay wanaag ay qof walba aragta wanaagaas ku taagnaato ku taageerto waxba ma haleynayo wixii taageero ah laakiin wixii la is aflagaadeynayo dadka la isku horinayo colaad la sameynayo taas xun insha Allah marka aragtideeda aan saas maanta kusoo gudbiyay barnaamijkeygii talo iyo tusaale insha Allah wixii wanaag ah laga shaqeeyo wixii maxay isu soo dhawaansho ah oo dadka isu soo dhawaadaan oo adduunka in badan aan ka dambeynaa meeshii mar walba aan isleenahay wanaaga soo dhowna dib aan u noqonaa mar walba insha Allah Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu wanaaga na tuso oo dad xaq ah na tuso oo anagana aan noqono dad wanaag iyo fahmo inuu Ilaahay naga dhigo insha Allah marka waa noo mar kale iyo barnaamijkeena talo iyo tusaale insha Allah khayr badan idin dhaafay meel walba joogtaan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.